Assalaamu calaykum. Waxaan maanta ka hadli doonaa habka qofka bini'aadamka uu u fikiro iyo saameynta ay noloshiisa ku leedahay. Waxaad ogsoonataa qof kastaba habka uu u fikiro ayaa noloshiisu ay u ekaanaysaa. Haddii aad noqoto qof ka fikira waxyaabaha wanaagsan sidoo kalena sida wanaagsan u fikira ee positive-ka ah, noloshaadu waxay u muuqanaysaa mid wanaagsan sidoo kalena horumar ay ka gaaraysaa. Laakiin haddii aad noqoto qof ka fikira waxyaabaha negative-ka ah ama sida xun u fikira, noloshaaduna waxay noqonaysaa mid awoodda saarta waxyaabaha kooban sidoo kalena aan ka fikirin meel dheer. sidaa awgeed waxaa la doonayaa in aad noloshaada ku dhisto mid hab wanaagsan u fikirta amba awoodda aad saartid inaad waxyaabaha positive-ka ka fikirto laakiin aanad waxyaabaha negative-ka ah awoodda saarin inaad ka fikirtid. waxaa haddaba xukuma qofka bini'aadamka ah oo saameyn ku yeesha noloshiisa ama habka uu u fikirayo waa 3 arrin uun. Number 1, deegaanka qofka uu ku nool yahay. deegaanka aad ku nooshahay waxa uu saameyn weyn ku leeyahay habka aad u fikirayso. haddii deegaan xun aad ku nooshahay oo dadku ay isku fiirsadaan horumarka aan laga jeclayn, run ahaantii way adkaanaysaa sidaad uga gudubtaay ama waxa laga yaabaa in saameyn weyn ay kugu yeelato. deegaanka aad ku nooshahay waxa uu qayb weyn ka qaadanayaa habka aad u fikirayso, sida aad u noolaanayso, horumarka aad rabto inaad gaadho iyo waxa aad doonayso inaad baratid intaba. sidaa awgeed mar walba waa in aad ka fikirtid deegaanka aad ku nooshahay iyo sida uu yahay. haddii deegaanka aad ku nooshahay deegaan xun uu yahay oo aan horumar laga gaadhi karin ama qofka horumar gaadha aan laga jeclayn, run ahaantii waxaa muhiim ah in aad beddesho deegaanka aad ku nooshahay. taas waxay keenaysaa in saameyn ay kugu yeelato. sidaa awgeed deegaanku waa shayga koowaad ee habfikirkaaga saameynta ugu weyn ku yeelanaya. 2, experience-ka iyo khibradda aad leedahay. khibraddu runtii waa waxa dad fara badan ay isku dhaafeen. haddii aad tahay qof aan khibrad lahayn, waxaa laga yaabaa hadallada dadku ay ku leeyihiin ay saameyn kugu yeeshaan. inaad horumar ka gaari weydo dadku sida ay kuula hadlayaan amaba falcelinta ay dadku ay kugu sameynayaan. laakiinse haddii aad tahay qof khibrad leh, uma joojinaysid ama uma dhegdhegaysid waxyaabaha ay dadku leeyihiin. sidaa awgeed qodobkaasna saameyn weyn ayuu kugu leeyahay. khibrad fiican waa inaad yeelato, waa in dadka dhaleecayntooda iyo hadallada ay ku odhanayaan iyo waxay kaaga falcelinayaan intaba aanad dheg u dhigin, laakiinse adigu aad waddadaada socoto, aad runtii waddada aad jeexatay iyo meesha aad doonayso inaad gaadhid waa in aad u socotaa. 3, waxaa sidoo kale saameyn ku leh fikirkaaga aqoonta aad leedahay. qofka uu ka aqoonta badan yahay waa uu ka mayal adag yahay ama waa uu ka fikir xoogan yahay. haddiiba qofku aanu aqoon lahayn, waxaa laga yaabaa qofkaas habfikirkiisu inuu iska gaabnaado, inaanu meelo dhaadheer ka fikirin ama inaanu waxyaabo badan aanu ka fikirin oo wanaagsan oo uu ku mashquulin waxyaabaha negativeska ah iyo waxyaabaha hoose. sidaa awgeed si uu habfikirkaagu u noqdo mid saxan, mid toosan, waa in aqoontaada aad kobciso oo aqoontaada aad kor u qaado. mar walba aqoontaada aad dhisto, habfikirkaaguna wuu la koraya. laakiin haddii ay aqoontaadu gaaban tahay, waxaa laga yaabaa habfikirkaaguna inuu noqdo mid gaaban. marka uu qof yidhaahdo shay ma samayn karayo, waa in aad qofka 2 su'aaloodun weydiisaa. shaygan ma waanad garanayn sidaas awgeed ayaanad u samaynayn, mise waanu doonayn oo sidaa awgeed ayaanu u samayn karayn. dadka habfikirkoodu khaldan yahay ama sida xun u fikira waxaa lagu yaqaanaa inta badan waxbay dhaleeceeyaan. laakiin qofka sida wanaagsan u fikirayay isagu waxuma dhaleeceeyo. xataa qofka haddii uu khalad ku arko, khaladkaas si wanaagsan ayuu ugu sheegaa, si positive ah oo uu ku dhisayo qofka ayuu wax ugu sheegaa. laakiin inta badan haddaad aragto qof dadka canaananaya, qof dadka dhaleecaynaya, qof dadka cambaaraynaya, oo qofkaasi habfikirkiisa ayaan saxnayn, oo qofkaasi si negative u fikiraya ama aqoontiisa ayaa qofka liidata. sidaa awgeed xataa qofku haddii uu wax khaldo waa inaanad dhaleecayn ama aanad canaananin, laakiin waanad si positive ah aad ugu sheegto adigoo qofkii tusayo shaygii. waxyaabaha muhiimka ah ee la doonayo qofka bini'aadamka noloshiisa inuu ku toosiyo ama inuu ku saxo habfikirkiisa ayaa kowka ah. habka aad u fikiraysay noloshaada oo dhan ayaa ay saameyn weyn ay ku leedahay. haddii aad toosiso, noloshaada ayaa toosisay. haddiise habfikirkaaga aanad toosinin, noloshaada wax weyn ayaa ka khaldanaanaya. waa in aad aamintaay shayga koowaad ee aad doonayso inaad wax ka qabataay waa habfikirkaaga. haddii habfikirkaaga aad aaminto shaygaa inaad qaban karto ama waxa inaad samayn karto, waad samayn karaysaa. laakiin awood kastoo aad leedahay, haddii shaygaa aad tiraahdid ma qaban karayo oo aad fikraddaa iska dhaadhicisid, macnaheedu waxa weeye ma qaban karaysid. mawduuceena maanta intaas ayaynu kusoo koobi doonaa. dhiso habfikir fiican kaas oo kuu fududaynaya noloshaada wax kasta inaad toosiso ama wax kastaba in aad si fudud aad u qaban kartid.